qodobka 3,000 xaqa u taagan ayaan jawaab ka bixinayaa live-kaygii aan soo galay labada oo la dhibsaday dawladda wax fiican samaysay maxaad u dhaleecayn adeero ma dhaleecayn adeero dawladdu inay iskarab dhigto dawladiid aakhire inoo diray iyo dawladoon waa gardarro dawladdu 30 sano SNM oo aakhire inoo dirtay inay saabayso adeero riisanka ilaahay u soo celiyay xasan sheekh iyo labadan oday cabdi xaashi iyo aadan madoobe waa itixaanka inay ku baasaan baan rabaa waa in ummadda Soomaaliyeed laga daayo khayaaliga oo la iskarab dhigin shiftay ummad kala qaybinaya oo aakhire inoo diray oo ina lugooyay oo shacabkii haligay oo ummadii haligay oo haddana gantaal ku garaacaya shacab calankii Soomaaliyeed doonaya iyo midna Soomaaliyeed in la iskarab dhigo ayaa xaraan ah qof daalima iyo qof xaq ku taagan in la iskarab dhigo ayaa xaq nin le Ingiriis baa dhul siiyay iyo nin le Ingiriis male Soomaali baan ahay in la iskarab dhiga xaraana warbahasha yaan la lugoynin SNM runta loo sheego musabix runta loo sheego reer idoor inta qaldan runta loo sheego waa in adeerow 30 sano ka badan iyo ziyaado kuma jireen mugdigan waa in dawladdu ay warka cadaysaa xildhibaanada wasiirada qoys jifo waa inaan warka u cadaynaa warka dawladda ka soo yeeray ma aha inay tiraaha kan nagarle no that's over waa dhamaatay haddaan doonno dulliga inaan ka baxno waa inaan godkan madow ay SNM inoo horseeday waa inaan soo afjarraa adeerow dadkani way xaniban yihiin dadkani waxay u xaniban yihiin loo dulaynayaa midnimo Soomaaliyeed nin Soomaali isagoo la dulayn ku dhiman iyo nin Soomaalinimadii ka saaraya inaan isgarab dhigo no dawladdu haday mas'uul ka tahay waa inay tiraha musabixi SNM waa inay tiraha waa inay gacan bir ku qabataa waa inay ficil iyo af iyo adin inta loo tagaa okay waa in loo dhameeyaa SNM waa in loo dhameeyaa mabda'a qurmoon ee jabhada ee Soomaali kala qaybin waa in loo dhameeyaa xasan sheekh ilaahay wuxuu soo celiyay itixaankan inuu ku baasaan raba ilaahay wuxuu soo celiyay itixaan buu ka qaadaya xasan sheekhow afkaad ku hadashay jaamacadda cagaaran xaqu waa diiday kan nagarle no garmale nin calankii loo dilayo oo shacabkii la layn oo madaafiic lagu garaaci nin soo duulaya oo calan Soomaaliyeed gubaya iyo nin shifta oo soo weeraray dalkii Soomaali aakhira u diray in la iskarab dhigo oo afka loo macaaneeyo game over dawladdu adeero haddaynan kacdoonkan barakaysan ee laas caanood ka bilowday oo midaanu ilaahay ka baryeynay ee sugaynay insha Allah biqilkan barakaysan bahdan barakaysan bulshadan barakaysan ayaan la hadlayaa shanta Soomaaliyeed ee shanta ahayn ee halka ayaan la hadlayaa meeshuu doonaa joogo buluuga kacaanka biqilka bulshada bahda barakaysan oo inagoo dhan ayaynu nahay jabhadii qurmoona oy SNM kow ka tahay mid ugu sii qurmoon waa tusbax haddii la jaro badan furtay kacaankana ka dhigaya kacaankaasi suuna u leexan ayaan laba life aan soo galay si fiican hadafkan kufri lahaa wax garamay okay waxaan la hadlayaa garaadada laas caanood isku yimid ee muddo dheer u ducaynay ilaahu dhul bahanta midee ilaahay waa mideeyay hadduu ilaahay mideeyay miyaan ogolaanaa in ay kala firdhaan ay kala baxaan no garaadka guud ee dhul bahante ayaan ka dhageystay eray dhibay on ka seexan waayay in garaadadii intaas oo sano ilaahu kulmi oo midee aan lahaa iyagoo isku yimid uu yidhaaha miga dambuuleeya garaad waad igu qasabtay inaan ku canjiro garaad muddo dheer 30+ ayaanu ducaynaynay inuu ilaahay Soomaali xal u keeno xalkiina ilaahay waa keenay arman noqotaa kii dumin lahaa 13 garaad ee dhul bahanta lahaa ee isku yimid okay oo ilaahay ka baryeeyay ilaahay inuu mideeyo miyaad kala diri dhageyso fariintan garaad daraawishtan barakaysan biqilkan barakaysan buluugan iyo gabdhahan iyo dhalinyaradan ayaa ku xukuma aduna ma xukuntid
oday Soomaaliyeed oo dambanimo xukumayo dhalinyarada buluugaas baa Soomaali xukumaysa bahda barakaysan biqilka barakaysan ee calaamada jaamacadda cagaaran wadata jaamacadda cagaaran waa xaq waa raganimada waa runta waa geesinimada ban ilaahay ka baryeynay markaas aduguna kala diri odaygan wadaadkan garaadkan aad leedahay dan buu leeyahay oo tagayaa xaguu tagi ilaahay waa idin mideeyay waa mamnuuc garaadka ka baxa meesha dib u soo noqon maayo casila kacaanka barakaysan waxaan leeyahay garaad ka baxa ee area degan ee qoysku doon ha ahado dhulbaanta kaliya ma away dadka ila deganaa nin kasta oo oday dhaqameeda oo sool iyo sanaag iyo cayn walow cayn la dhibsado degan kacaanku meesha ka bilowday oo oday dhaqameed u ah oo ka maqnaada waa in la bedelaa waa in la sameeyaa kacaanka barakaysan iyo garaadadow ninka area degan ee garaadkiisii ama suldaankiisii maqan yahay qoysku doon ha ahado okay waa in si degdeg loo sameeyaa mid jooga taas waa kow yaa sameynaya kacaanka barakaysan iyo idinka wada jooga labo nin dambe oo bixi karaa ma jiro hadduu raali noqon waayana jeel ha lagu xiro wadaadka garaadka ee waan bixi yiri gandaalka Muuse bixi ha ku dilo meesha ama ha ka badbaado gobonnimo u dhimanaya hadduu baxo waa fulay waana ninka Muuse bixi uu soo adeegsan doono horta se u dhan yihiin nin bixi kara ma jiro bartaas waa inuu qoriga wada qaataan waa in calanka Soomaaliyeed meel kasta laga taago garaadku wuxuu cunimi hadli tan oo kale waa xaq waa inuu calanka bluega intuu xidho uu ku dhintaa waa inuu kafanka toshaa suldaan kasta iyo garaad kasta waa inuu dagaalka galaa waa in Soomaali laga xirayo dulmiga okay cid bixi kartana ma jirto kacaanka oo amarkaas aad qabtaan hadduu baxo isaga jifadiisuba waxaa soo hogaamin shayaatiinta soo hogaamin waa ninka leedinku adeegsan waa ninka loo soo mari inuu idinki isku kiindiro waa mamnuuc inta ma ku dayaa waxaan ku darayaa dhulbaanta uu meesha la idinka soo galayba ama Soomaali dhanba la galay Soomaaligu waa balangaab forever weliga ahaw qoysku markuu boqol gaaro magaciiba uu ka rahayaa jifo kale oo wuxuu la baxayaa suldaan kale iyo dhaqameed China waa imisa milyan China okay hal suldaan ay leedahay bal Soomaali soo tira koob inta Soomaali oday dhaqameed leedahay bal soo tiriya hadduu dhulbaanta yeeshay 13 oday dhaqameed bal jifo kasta oo Soomaali soo tiriya waxaan u malayn waxa ugu oday dhaqameed badan dhulbaantii ogaadeen maxaa labada ka dhigay wax badan shirkad hunguri xumada macaan jecelka in la adeegsado walaalkood loo adeegsado number 1 aniga baaritaan aan sameeyay waa dhulbaante iyo ogaadeen Ethiopia maxaan wax loo bilaabnaa okay nin ogaadeen baa la tusi lacag iyo wax kale kaan baa noo dhamayn dhulbaantana macaan jecel baa u dhamayn haddaba meesha laga soo galana waa meelahaas okay waa qolada ugu oday dhaqameed badan ogaadeen sida ariga bay u taxan yihiin qise waxa laga sheekeeyay hadda ka hor Ingiriisiga yaa meel Soomaali galbeed ayaa uu ku shiriyay Ingiriiska Soomaalida marka qabiil kasta weydiiyay Ingiriiski away odaygiini aw leerkiini ogaadeen si u dhan yihiin way kala baxeen reer Cabdillah si kala baxay reer Isaaq baa si kala baxay waxa si kala baxay awliyahan markuu ogaadeen soo dhameeyay suldaankii ogaaskii malaaqii ma ayaa wuxuu u dambeeyay garaadku ma garanay minka garaad jidwaaqa wuxuu yiri intaas waa sabab dhulku u baxay magac ogaadeen u baxay intaas garaadkoodeen ahay anu garaadka waxaan ahay makaahil ogaaska makaahil waxaan ahay ogaaska reer warfa ogaaska markay tiriyeen ayuu isagu yiri baa lay garaadkii jidwaaq intaas garaadkoodii baan ahay dhulkii ogaadeen kaasa loogu qoray annaga waa sabab waa dhulka inaan u bixino magaca jidwaaq baa kow haddii taariikhda aad baadho meelo badan iyagoo qabiil ka carari ogaadeenna qabiil ku faani ayay jidwaaq sabab u noqdeen meelo badan inuu magacan hil galo okay
sida ariga kuwa waxa la ii sheegay wallahi bal intuu maghribka la tukanayo ugaasi dhaha kuwa yiri baa la ii sheegay okay ogaadeen bal soo tiriye inta oday dhaqameed leeyahay dhul bahantana bal intuu leeyahay waxa soo raaca dhaqanka saddexda qoys ee isku yar dhaqan eeg waa garxajis iyo ogaadeen iyo dhul bahanta garxajis waxaan u malayn xaggaas waa gobu ka yahay wareerkaas haynu u dooranno hogaamiyaha insha Allah future-ka reerka garxajka la yaa soo far dhaqankaas way u dhow yihiin dhul bahante iyo ogaadeen laakiin meelo badan bay ka duwan yihiin war horta garxajis meeqa oday dhaqameed buu leeyahay haddii uu ka duwan yahay ogaadeen iyo dhul bahante wax kale oo fara badanna uu ka duwan yahay waan ogahay ilma adeerayaal haynu ka takhalusno qabiilku markuu boqol gaadhaba in aanu oday dhaqameed dooranno waa meesha khilaafka abad aynaan u heshiinay war dhul bahanta haynu ka bilowno oo hal garaad ka soo raabno hal garaad haba laga takhaluso garaadadan oo dhan hal xabaad dhul bahanta wax quleedii haddaanan oran hartiba hal xabay habuleeyay garxayso meeqa garaad baad leedihiin meeqa ugaas baad leedihiin hal baan idin ogolahay intaasi waa kaftan iyo dhab la isku daray waxaan leeyahay war anigu isaaq ma nabci reesha isaaq ma nabci inay u taliyaan oo caasimada la dhiga Hargeysa ama Burco oo ra'iisul wasaaraha ay qaataan madaxweynaha qaataan oo jiji ka taliyaan oo Soomaaliya taliyaan baan rabaa laakiin waa in loo dhameeyaa aslam waa in loo dhameeyaa haddaba isaaqow isdaba qabto oo intiina xalaasha shariif ee dulmigan daawanaysa og ee dhibsanayso Soomaali u taliya annaga oo idin raacsan garxajis iyo habar yoonis iyo wixii lamid ah Soomaali jecelow annagoo idin garab siinayna haynu Muuse Biixi u dhamayno iyo dirkiisa Soomaali galbeed ha ahaado NFD ha ahaado Djibouti ha ahaado in Umar Geelana waxaan maanta iyo saakaba idin sheegay hadda idin sheegayaa in Umar Geela hadda kadib aan ku ahay mucaarad oon oran jiray wardaaye intaan heshiino waaban qaldanaa fitanta Soomaaliba waa isaga Muuse Biixi iyo in Umar Geela waa in lagu qaadaa shamsi waa in lagu qaadaa kacaanka barakaysanow waxaynu soo ognahay Muuse Biixi iyo Ismaaciil Umar Geele inaan u dhamayna waxaa kaloo idin maqashiinaya inkastoo aanan kuwa daaroodka aanan rabin shantan Soomaali gobolada ka dhisan ma ka hadleen weli federaalka yar shanqaraye shantan ma ka hadleen horta iyada Puntland ma rabo ma doonayo inta kale afarta kale ma ka hadleen dulmigan lagu hayo laascaanood maxay u hadlila yihiin waa isku dariiqo waa jabhadihi iyagana waan soo noqon doonaa horta Muuse Biixi hanu dhamayno insha Allah ilaahu kii gardaran ilaahayow guushaasiinin ilaahu ka gartale guushasi idorow intiina doorsoon ducada moogashiin ilaahu aniga idoorka qaldan ee Soomaali aakhira u diray ilaahayow midkanaga xaqale xaqasi ilaahu midkanaga jacaylka iyo midnimada iyo Soomaaliya ilaahu xaqasi ilaahu daalimka Soomaali kala geeyay ilaahu ha nooga helin